بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal mar kale. maanta waxaan idin bari doonaa 3 xikmadood, balse waxaan kaa codsanayaa inaad xikmad kasta gaar ahaan u sii gudbiso. sidoo kale haddaad nagu cusub tahay aan nagu soo biirto. xikmadda koowaad: ka waran haddii qof hadiyad ku siiyo, noocay doontaa noqoto hadiyaddaasi. ma waxaad jeclaanaysaa hadiyadda, mise waxaad jeclaanaysaa qofkii hadiyadda ku siiyey? sidaasoo kale ilaahay ayaa wuxuu hadiyad ahaan kuu siinayaa gaadhi ama bakhaar. ma bakhaarka ayaan jeclaanaa mise ilaahay? xikmadda labaad: haddii ilaahay xikmaddiisa qayb ka mid ah ku soo dhex mariyo, ha u malaynin inaad ummadda wax dheer tahay, ee waxaad ogaataa inuu ilaahay ku sharfay. xikmadda saddexaad: adduunyada ilaahay wuxuu inoogu qurxiyey wax badan, waxaana ka mid ah inaynu innagu wax leenahay, wuxuu doona ha ahaado dhul, gaadhi ama geel. ilaahay ayaa ku siiyey, waayo adigoon waxba haysan ayaad adduunyada timi. maantana dhulka aad degan tahay waxaad ka xigtaa inaad ku dagaalanto, yacni xataa mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad u dhimataba. balse laakiin la soco, waxaan adigu maamula uunbaad ka tahay melihid, leanna maxaa yeelay adigoo aan waxba lagaa weydiinin ayaa lagaa dhex qaadayaa, keliyana waxaa kaa raacaysa waa kafan uun. dabcan 3 xikmadood waxay ila koonaadeen 3 xikmadood oo naftayda iyo nafaha kaleba ay u baahan yihiin. run ahaantii markaad si fiican u sii fiirisana waxaad ogaanaysaa inay waxaan oo dhanba ay run yihiin, balse laakiin marka hore dhuuc. mahadsanidin. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.